social media war hoy sida maaha arankana sumee maaha kala sooc dadkana maaha madaxdii la soo doorto eedaynu saar maaha war hoy sida maaha social media war hoy sida maaha arankana sumee maaha kala sooc dadkana maaha madaxdii la soo doorto eedaynu saar maaha war hoy sida maaha sida doontid yeel maaha fanaaniinta hay maaha heeshooda soo qaado si xun wax uga sheeg maaha sida doontid yeel maaha fanaaniinta hay maaha heeshooda soo qaado si xun wax uga sheeg maaha dumarkeena Soomaaliyeed heebtooda soo raadi sawiradiyo fiiryowga ruux kale ka soo qaado qabantiga ku cay maaha dumarkeena Soomaaliyeed heebtooda soo raadi sawiradiyo fiiryowga ruux kale ka soo qaado qabantiga ku cay maaha horta dhalisheeda kooda waxay tahay isticmaalka social media aan ma dhilisani laakiin sida waxa baraha bulshada ku soo batay baan dhaliil ka wadaa dad badan waxay sheeganayaan wariyo dad badan waxay sheeganayaan siyaasi dad badan waxay sheeganayaan fanaannimo adi wax kasto ay Soomaalida maanta raadinayaan koowaad waa social media inuu qofku soo canbaxo wax kale ma raadinayo hadduu rabo inuu wariyo noqdo hadduu rabo inuu fanaan noqdo hadduu rabo inuu siyaasi noqdo intaba wuxuu rabaa inuu baraha bulshada laga arko bas inay muhiimad tahay aan dareemani marka waxaan ku arkay dad badan oo waxa arkaysa hadda wariinimo sheeganayaan wuxuu soo fidhisanaa Facebook live waxa ay ugu wariye marka TV-ga la daawanay iyo waxyaabihii la daawanay dhan hadda waxa muhiimada shaashada saaranba in la fiirsado Facebook live qof aan soo fidhisanay dhaliil wax ku wada siyaasadda Soomaaliyeed Soomaalideena hadda wax kale ma raadiyaan wax aan raadinayn waxa waa inaan baraha bulshada ku soo caanbaxno wiji aan ka yeelano muuqaal aan ka yeelano brimka wadada marayso lagu dhahay heblo waa kan wax kale aan ujeedo kale aan leenahay ma lahan wax kale ma jiro hadda waxaan u maleynayaa Facebook live dhibaato weyn ugu keenay waxa ka mid tahay qof aan soo fidhisanay Facebook live wax kale ma dhaliilayo dawladda Soomaaliyeed dad qof buu iska haysaa shakhsi ha noqdo maamul goboleed ha noqdo meel buu iskaga dhagan yahay shaashadu ku dhagan yahay waxa u maleysaa inay ka daawasho badan tahay TV-ga la daawanayo Said asoo propaganda wado waxa u maleysaa boqolkiiba 0% 0.1% wuxuu wada run qarax baa ka dhacay meel heblaad bas uu maqlay wuxuu iska soo saarnaa shaashado hebla ka dambeeyay hebla saas yeelay gaari nooca soo watay saana uu soo mari meel uu ka keenay kaale sheegay meel uu ka wada ma garanaysid wuuna wada meeshii uu daliishad way dhageysanayaan qabiil hebla ka dambeeyo saana noqotay ku kala soo galay Facebook live qabiilkii uu gees ka sheegay wixii waa la sheegareynay ummadii qaadanaysa marka dadkii boqolkiiba 90 Soomaaliyeed 90% ama 99 aan dhahnabo waxa u maleysaa propaganda inay run u qaataan run u maleynayaan qabiil asaa ku xanaaqayo shakhsiga ku xanaaqayo saasa dhil magaalada lagu gelina marka inuu qofkaas sameeyay ama uu qofkaas ficil ka sameeyay oo sameeyay lagu sameeyay oo uu sameeyay والله هدا maanta waan tirinayaa dadka baraha bulshada ku jiro Facebook live soo galayaan aan noqoto YouTube wax la geliyo waxaad u maleysaa shilimaad inay raadinayaan oo aan leenahay YouTube qofka furanaya YouTube hadaad furato waxaad u baahan tahay inaad hesho
waxa markaas adiga aad views aad ku hesho ama aad muuqaalkaada markaa ugu daawasho badan noqdo waa inaad siyaasad dawladda aad gashaa waa inaad shakhsiyaad gashaa waa inaad sameysaa wax aad adiga dadka ugu views badan tahay ama aad ugu aragti badan tahay oo dadka ay jecel yihiin saasuu ku noqonayaa hadda hadaa fiiriso TV ninka xataa TV ka shaqeynaya wuxuu leeyahay wax qaas asu ah oo sameysanaya oo YouTube ha noqdo mise waxa noqdo page oo cusub ha noqdo meeshii wuxuu ka wadaa marka ficilo fara badan oo asiga ka sameynaya والله أرنتان بارتان بالسمي رجع لنا صاحبنا ببارين وحال سكو فيري يوتيوب على جلاي وحال فيري قوميده هكلو ودمده كلو دليل مليين ضد قصص عمله Soomaaliyeed عمله inay sameeyaan inay baraha bulshada soo galaan dad shakhsi qabsadaan fanaan qabsadaan ama siyaasi qabsadaan mise inay wariyo ku dhagaan sidaas sameeyaan ma u badno hadii u badi waa nin caafimaadkiisa xatay ka hadii la sheegay caafimaadkiisa waa sax ma ahan dhinac baa loo jeedinaya taas waxa arkaysaa marka inay u badan tahay Soomaaliyeedno waxa u maleysaa hadda inay ku soo badanayaan social media ee wax cusub iga xagooda ka tahay hadii dadkii horaan bay u tageen ay kana ka daba gaar bay taageen oo maleenaani hadda way jiraan laakiin daawashadu ma badno fiiri haduu qofka wanaag ka sheekeenayo lama daawado lama sheeg gareenayo lama fiirinayo waa la sii moodaa hebel aad taqaano oo isku waalnay ama isku caafimaad qabo oo wax balaay sii wado waa iska daawanaysaa way ku socotaday waa sii sheegareen comment ay umaysaa maalin waxaan daawanayay Cristiano Ronaldo waa ciyaartoy baa wuxuu soo galay live Facebook waxa daawanayay almost millions of qof daawanayay ninba wuxuu iska soo qorayaa budla ma taqaana Cristiano Ronaldo Soomaaliga soo qoraya Cristiano Ronaldo hooyada yaa qabo garab mi aan ku qabsada waxyaabo fara badan oo yaani min aaneen dadka kale horumarka kale luqada kale ku soo qorayaan oo micno leh ninka ay gaarsiinayaan ninka Soomaaliga inuu fahmin uu jeedaa maanta qofka Soomaali ma uu sheegaysa hataa dareemo hataa wax uu qoraysid ninka ma dareensano wixii way dhaafayaan micno daro iska soo qoraya marka live kan uu daawanaya marka waxaad u maleysaa marka Soomaaliyeed inay negative ay fiiriyaan positive ay fiirin والله horta Soomaaliyeed waxaan gaarsiin lahay horta wax kasta waxay leeyihiin aqoon bay u leedahay qofkan wax aqoon u leeyahay fiican wariyaha data waa inaad aqoon u leedahay warinimada waa inaad ugu soo baxdo jaamacad shahaado ana hadda waxaan aaminsanahay warbaahinta Soomaaliyeed waxay ku shaqeeyaan wax civilan qofka uu iska imaanaya uu iska shaqeynaya CV ma haysto meel uu ka soo jeedo ma hayo hadda si dab gasho qofkan no detail u leeyahay malahan wuuna shaqeynaya adoo war ku jeedinaya waxna uu ka dhicinaya marka adduunku wuxuu horumar ku gaaray waa qofku inuu wax soo bartaa oo aqoon u leeyahay qofba wuxuu Facebook iska soo qorayaa Soomaaliya qarax ka dhacay laba qof ayaa dhimantay oo sida laga yaabo qayb yar oo warbaahinta ahaan Soomaaliyada u soo qaadanaya qofkii bari waxa arkayo nin agaasime wuxuu leeyahay gorma warinimo bartay ana marran daadi waxa soo ku dhig barina uu shaqeynaa ninkii Facebook hal mar wax soo qoray sidoo ku shaqeeyay laga yaabo qofku inuu YouTube soo galo oo wax propaganda isku geliyo nin masaasataha nin siyaasi ah waa mar waxaad arkaysaa marka shaati iska xiranayaan oo ay ka lahayn sidoo magaalada ku jooga hadii maanta la fiiriyo warbaahinteena Soomaaliyeed 99% meel warbaahin ka soo batay inay garneen qofkina uu shaqeynaya warbaahin uu shaqeynaya lacag buu qaadanaya saasoo muhiimadiisana ay tahay uu ku faraxsan yahay qaali ma afar qabiil lagu shaqeysiyay ma saaninkaan saaxiibiyiin adii meel ku soo gal kala aragadi ninkan uu shaqeynaya marka taas aan waxaan dhihi lahay in lagu shaqeeyo dastuur nidaami ah oo qofkan lagu shaqeysaya aqoontiisa iyo meesha wax kala imaaday ay qofka in lagu shaqeysii maaha aftahanan ahay waan hadal badnahay magaalada ana wax hadal badan wari ma noqoto hadal wari lagu ma qaato qofka inuu iska hadlo wari ma ahan wariyaha waa ninka nidaamka ah oo afkiisa iyo idinkiisa laga maan helay wuxuu sheegay wax nidaam ah waa even hadii wixii xataa sax tahay inuu micno u sameey karo haduu walaalka wax dileem karto inuu asiga dilay sheeg runto hadii ahaane wixii iska daaf ma aan inaad wax soo marmeersato oo propaganda keento oo muhiimada dadka sheegto maaha marka waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegaya oo run ahaantii dhab ay tahay in aan nahay Soomaaliyeedna waxaan aqoon u haynin ana iska sameeyna jecelnahay waxaan aqoon iska sameeynaa saas uu ku faraxsan ninkan
wuxuuna ku dhihi waxaas oo soo bartay jaamacad Highland ka soo baxay shahaado ka inta dhahday way dhuntay saasay noqotay ma shahaado dhuntay adduunka jirto waa CV ga waa adduunka horumar internet lagu xareystaa meel iska gashtaa waxaas iyo bargabaano ku gelina marka والله waxyaabo badan oo iga yaabiyaan intaan horta ku galin kuwa dambe hal iga yaabasa waxay tahay saddex bil ka hor baa wiil Facebook live soo galay wuxuu rabaa in la daawado views ay bataan tooriye uu soo qaatay midi wuxuu dhahay hadii 2,000 views ay gaaraan waan isdilaya dadkii markaas qof kasta share iska qabtay inuu ninka dhinta bisayro ninkan kiis share ku qabtay isdil buruntaada meenda isdil waa isdil waa ninka kasta share ku sii qabanaya dab ninkii 2,000 views u gaartay dadna rabooda ka gaarsiiyeen ninkii hal markii hawada laga saaray marka hadduu ninka dhinta maxay faa'iido ku jirtaa qaar wili uu ciyaaraya beentis madili karo marka dambe baa Facebook live soo galay oo hadan daqiiqada ka dambe soo galay wuxuu dhahay ninkii waa isdilay qooro iska jiray wuu dhintay ana reportkiisa hay saaxiiba ahaan lama maalag soo wareegtay ninkii Facebook live soo gaasoo caafimaad qabo marka waxa u jeedaa soo waxa isku daalanayna macna tahay wax macna ay sameynaysa malahan marka waxyaabahaas uu yaabnaa saddex maalin ka hor arko